لو guda galno mawduucana ku noqon kara sidee loo badbaadin karaa ganacsiyada yaryar marka waqtigu xilliga oo kale lagu jiro soo wajaho dhaqaale yari iyo xaalado dagaal iyo arrimaha hadda taagan dalkeena ganacsigeenu sidee ula jaan qaadi karaa ganacsiyo badan oo maanta jiray baanan jirin marka ganacsiyada jiraan si ay u sii adkaystaan u dadaalaan maxaa looga baahan yahay marka laga hadlayo xaaladaha noocan oo kale badan waa waxyaalaha ugu badan ee kulma ganacsiga dunida oo dhan marka laga eegayo tusaalahaan kale waxaan ka arkaynaa Yurub oo kale ama yani Mareykanka oo kale oo Yurub si khaas ah dagaalkii Ukraine oo kale yani saameynta yani dhibaatada u geystay marka xaaladaha noocan oo kale mostly adduunyada oo dhan bay ka siman laakiin qaabka u badbaadi karay ganacsigu ugu mudan loo oran karayo ganacsigu ku sii survive garoobi karaya waa laba talaabo wala way badan factors laakiin laba talaabo ka soo qaadanna qoban baa laba qodob aad muhiim ah qodobkooda waxa weeyaan waa inay shirkadu ku dadaasho inay la timaado initiative cusub yani qaab cusub oo hawsha hore u shaqeynaysa iyadoo haddana inay hal abuurnimo ku darto taasi waxay keensanaysaa in ay samayn karayso yani dhaqaale kale oo heli karayso macaamiilka yani oo halka target ay ka haystay audience gaar ah dad gaar ah yani waxa weeyaan ay u adeegi jirtay waxay adeeg kala soo kordhiso waxay noqonayaan laba qaybood yani wax ballaaranaya target base qaybta labaadna waxa weeyaan waa in lagu dadaalo shirkadu kharashaadka ka baxa maaha inkamka kharashaadka ka baxa inuu yareeyo oo la badiyo dakhliga yani waxa weeyaan soo galay haddii aan la badin karin dakhliga waa in minimum yani la yareyn karayo kharashaadka baxaya marka labada qodob baan yani kusoo koobi karaa waayahay ustaashaashayna labaad in u nimaadno maxaa sababi kara culeysyada dhaqaale ee soo wajaha ganacsiga culaysyada dhaqaale qaarna waa qaar ganacsiga gudihiisa ka yimaada qaarna waa qaar ka yimaada ganacsiga gudihiisa abadiga ka baxsan ganacsiga marka laga hadlayo ganacsiga gudihiisa waxyaalaha keeni karaya waxa kow ka ah hal abuurnimada inaanay sii jirin ganacsiga dhexdiisa oonay yani shirkadii u diyaarsanayn inay ka jawaabto baahida isbedbedelaysa ee kala duwan waxa weeyaan waqtiga ku salaysan macaamiisha ay u adeegayso taa haddii aanay yani waxa weeyaan aanay keensanin oo la jaan qaadi weyda teknolojiyadda waa culays dhaqaale soo wajahaya meesha ka bixi karta tusaale waxaa kasoo qaadan karnaa shirkadiina oo kale waxay la jaan qaadi kari weyda yani teknolojiyadda casriga haddii tan meesha ka baxday qodobka kale isagoo aadka muhiimka ah dibadda kale haddii ka eegno waxaan waxa sababi karayo kale dalka oo gala yani xaalad yani dhaqaale darro oo inflation oo kale oo yimaado sicir barro kale oo yimaado waxa kale oo kamid ah dagaalada laftigooda qayb ka yihiin waxa kale oo kamid ah laftigeeda dunida waa kan global yani uu wada noqday hal qol oo noqday adduunka oo dhan marka haddii dagaal dhacaan culays kasta oo dhaca wuxuu yani adduunku qaybsanaya si isku mid ah ugu yaraan yani waxa weeyaan dhibaatadu way wada taabanaysaa marka labada qodob baa iyaguna yani sabab kara ay loo baahan tahay sidee loo xakameyn karaa solution saddexda noqonaysa sidee loo xakameyn karaa culayska dhaqaale ee ganacsiga siyaabaha loo xakameeyo culaysyada dhaqaale soo wajaha ganacsiyada inta badan aad bay u kala duwan marka ganacsi yar iyo ganacsi dhexe iyo ganacsi weyn yani dhacday laakiin haddaynu soo wada ururino qaababka yani loo maarayn karo waxa kow ka ah financial management-ka yani hore qodobba ugu soo sheegnay oo noqonaysa in si fiican loo maamulo loo maareeyo waxa weeyaan dakhliga soo galaya shirkadda iyo waxa weeyaan kharashaadka ka baxay marka in la eegi karayo meelo ay ka iman karayaan gaabab ay ka iman karayaan dhaqaale maamul taasi aad bay muhiim u tahay waa in laga warhayo qaabka loo maamulayo dhaqaalaha shirkadda qaabka kale loo yareyn karayana waxa yani qayb weyn ka ah in la tababari karayo shaqaalaha oo shaqaalaha yani tababar la siin karo because of shaqaaluhu waa resource ugu weyn ee keensanaya inay si fiican waxa weeyaan shirkadda ay u dhaqaajiyaan marka shirkadda ka shaqaale wanaagsan tahay amba ay ka hawlwadeen wanaagsan tahay عاديا حالتها نقل سفيان بوجهك markay timaado marxaladaha xaaladda imika taagan waxaa la gudboon qofka gudoomiyaha ama maamulaha ganacsiga inuu sameeyo marka xaalad adag company ku yimaado xaaladaha noocan oo kale markay timaado kale dawladda hoggaanka ah waxa ay gacanta ku jira maamulkeedu waxa kula talin lahaa dhowr qodobka kale waxa horta inuu isagoo iska shaqeeyo قالين يسوق شغال قضاء بدن أيضا نقول عليه مثلا كذا يقدر كان تكون رأس كان بالي على أبورد لماذا يعني كناعس فوقله على أبورد كناعسية صرفت واحد هاي كناعسية قاعد يقول مرة بكويجي سألنا كلها تقف يعني depression كله معاملها إسكالا يعني ماشى أدي وقت كان سعيني ماشى سهروا مرتب cause of وحي contribution كيلو قليل لهالشيء كده وحي كومنتر سنكري أو يسجل يعني حوله يسمى مكا قف يقول لك شقية عارف متكيسة قف يقول لك شقية في كريديسة أو يعني هو ناتشيو قف إنه استيسي عنها أقوارهانية فقهامها حكيمي في قادنسة contribution يعني هي قليل كناعس قدر قرابات وصمين كلام حويان إنه حوشيو
team work amba wada shaqeyn kooxeedka yani waxa weeyaan dadka la shaqeynaya waayo haddii la wada shaqeeyo oo Soomaalina hore tii gacmooda jir ku gooyay haddii teamku isla jaan qaadi karay xaaladaha noocan oo kale waxa fududaanaysa wax in lagu gudbi karay marxaladaha adag oo kale maxaa keeni karaa shanaad noqonaysa burburka ganacsiga maxaa sababi kara maxaa keena inuu ganacsiga baaba'o ama uu suuqii ka baxo waxaan ognahay kumbaniyo waaweyn oo suuqa ku jira inay dagaalada iyo xaaladaha markay maadaama suuqii ka baxeen kuwa startup oo haddana suuqa ku jirayna ay ka baxeen maxaa sababi kara inuu kumbani la bilaabo uu baaba'o xaaladdan horta dagaalkeeda lagu masalan karayo marka la eegayo koos waxa jira ganacsiyo laftigoodana boomina oo wax weeyaan xaaladda marka adeegyada kale wax weeyaan iyaguna faa'iido fiican sameeya amba ganacsiyo yani banaanada tan waxaan ku saray karnaa waa laba qodob oo mid gudaha Kenya iyo mid dibadda Kenya gudaha Kenya waxa vision ka shirkadda amba halkay u socoto yani waxa weeyaan kaluma hadduu vision kulmiyaha halka loo socdaa waxa weeyaan geediga waxa weeyaan halka ku furaysan ma garan kartid marka tan waxa keenaysa jahwareerkaasina burbur keensanaya qodobka labaad geedida ninkii wadaha loo daayay marka wasaasoo kale yani waa doorashada cidda maamulaysa laftigeedu qayb ka noqonaysa xaaladahaas oo kale ka saari qodobka labaadna wuxuu noqonayaa isaga laftigiisu waa ganacsiga oo la qabsan kari waayo baaxadda suuqa سوق ما دام بحدد يطلع كوضع تين كور يهوس مكا لازم حالة أما بدل ما تكعسن توكلا دباشي يس واحد في كده في دباشي قانا يعني somehow techniques هنستا ممكن بالي كريم مكا شركة بقى جناح سيا حالة أو كلا لقب سن كراية adaptability وناس كده بالسوق وخلونا يعني مسفع مسماريو وبنبت بدل حالة أنا كلا أوكي شقانو سامين إنتاج بكل هي هرمات كجناح سيا يبرر كجناح سيا shaqada marka la eegayo dawlad ognahayo waa qaybta ugu weyn marka la eegayo ganacsi kasta wana sababta loo departmentka xoogga la saaray inta badan ay tahay human resource managementka oo iska daa burbur kale tusaale kale shirkadu way burburi kartaa haddii employee turnover-geeda uu bato yacni dadka ka tegaya haddii ay bataan welina injiinka dadka talentka waxa weeyaan haddii ay ka tagaan burbur bay ku keeni kartaa taasoo kale marka xagga shaqaalaha la eegayo qayb labaadna horumarkeenu ka eegaynaaye waxa weeyaan haddii la dhiso human resource departmentku wuxuu عادي متهاجين هاي هرمريت يعني شغالها لكن سومالي هاي نقول حنو يعني نقنعين إنه يهاي بورك الله هيست شغالها الجوكر يعني هم بقى حوالي اللي جت خلصوا بكا هدينا لسه شغالها أو يقيت عدود شغالها أبوه هيومن ريسورس يعني هي ديبارتمنت كو أي حوجة ساعات إنه دستو وحوالي نامك هي شغالها وحقيقي ويك قاعدة كريسة استدرك هي هرمريت يعني هي كناس si ganacsigu u guuleysto maamulaha maxaa looga baahan ama shirkadaas si ay u guuleysato maxaa looga baahan كل فترة بدل لو جبنا يبقى يعني قضاء مهم ولا لو جبنا هذا فرق بدن لكن هذا الوصول قرنا أفرق قضاء كلياتها قضاء قضاء نقول إن ومر والبك الشقية فيشن كان يعني هالك أسرع الشركة دي هالك أسرعتها أي تهاي يعني تربط كيد وايو ما كتهالك تهالك على هذا أنا واحد سميس ميمي ثلاث سيد لنا ما كان إنه مر والبك هيو بريق هالك يعني لوصل قيت الوضوح نقول ساعة إنه كنت دارو إنه قاطد باص كستو وقاضني يد وريك person rate position يعني تيرولتري يعني قفك كم مناسب كا بوسك يعني هو ديبيان بمشي وديبي قلب استحالة أكيد مهم كوي وحويان إنه يسوي نفتي سكشقي يعني قفك معمول كي هدول نفتي سيفي عنه بشقيه أو psychologically وستيسو يو وحويان أقوانا هامبا يعرف من هامبا وحبنا مقابل كريه قيت الفرد وده بيسوي إحنا قلنا ساعة إن وقفك اللي كنت دارو مرة إنه وصله يعني تشين السوق يعني السوق يو وحيراها السعودة يو حالين السوق كسبني سو ما كسو سميسن كرايو استراتيجية كهبان حالها دق دقيقة ما توقع. بقيسا شروط ضميسا اليراد حتى خبتني لعبان كنعس مدام وحا أين مكسورني إن السوق وخلق كجرو كنعسي سيجر حالة عدد شرنشرة كسينا عيا إيه بنحات لكو السنة هينو كان يراد إنك داونية ربينا كنعس هذا أبورا markaad ku bilaabayso suuqa kale suuq marka yani suuq marka adeeg yahay oo kale amba baaxadid ku jiro kale ganacsiga doonaysa in galowdo shayga ku wada xayaan ay caadi marka mar walba muhiimkii waa inaad research samayso yani baaritaanka cilmiyaysan samaynaysa wuxuu wax weyn ka tarayaa halka ka geli karto suuqa yani gaab badnaa marka xog la helayaaba Soomaalida waa hore u xalliyen marka mar walba xog hayso waxa ku fudan karta qaabka xaq u keli karto ganacsiga sidiisna waa xalinta caqabado si qiimo yani loo sameeyo qiimahaasna ودك دبياتين كل جوه حليو ما كسر العقد سمين كريه قدر كلامي أكيد مهم كل واحد ينسبنا إن وقف كل دالين وقبصة business consultant أبغى business mentor وقبصة واي فكر كذا يعني كل ما في لا بدنا يربط أنا حاجة بيننا أكونتي كنا عسكر هاي ده هذا الشيء عد وحويان أديكم تباشر أكون كنت بارسين كتوه تبالين كتاب لكن هذا وحوي تبالين كريم عد كساعدنا عند هاي سنين سفر يعني موجود كل قيمته
waxaana idhahdaa inta badan ganacsiga waa sida bato kale cidda baalan karto ma ka bixi kartaan balanta baashin karo haysatay yani intaas kala talmiyay aad u mahadsantahay dhalinyarada ganacsiga leh kuwii hore u sii jiray qof kastoo maanta startup business ah iyo ku sii jiray fariinta aad siinaysaa si uu suuqa ugu sii dhigo uu u sii jiri karo maxay tahay fariinta ugu dambaysa tusaalooyin siinaya xog kooban noo sharaxay tusaalaana kale taariikhda iyada isi soo celisa yani waxa weeyaan dadka doonaya inay marka ganacsiga soo galaan hore ugu jiriba waa inay wax ka bartaan biographiga shirkadaha adduunyada ee waxa weeyaan horumarka sameeyey iyo kuwa ka baxaya waayo taariikhda waxba laga bartaya waa wax soo noqnoqda yani caadiyan maaha wax cusub dhacdooyinkan ka dhacaya suuqa baxadigiis wax cusub maaha xaaladu yani ku sugan cusub maaha waa wax dunida hore uga soo dhacay dhacayna ilaa ay saacadu iyo wax weeyaan ay garanaysaa dhamaanayso marka waa in uu qofku wax akhriyaa oo uu xog helaa way xog hadaan helin wareed waxa ta qof dhalaa oo ay ku baadkaan sanadkan ka suuqa qodobka aadka shayga aadka muhiimka ah waxa weeyaan waa in aad organize garaysato oo isku hayso cid kula shaqeynaysa yani teamka kula shaqeynaya haddii aan isla jaan qaadi karin xaaladaha noocan oo kale oo isku nacaysaan waxa weeyaan dhaawac bay gaarsiin karaan iyagoo ganacsiga indeen ma wada jaan qaadi kartaan marka waa inaad dooran kartaa dad kula jaan qaadi karaya dadka kula jooga kula jaan qaadi karayana wax weeyaan waa inaad ku dadaali kartaa si ay kula jaan qaadaan inaad aqoontooda dhisto oo markaad meel wada taagantay dimension wada taagantay marka hal dhinac perspective taagantay shaygaas si waa arkaysaan way fududaan inaad halkii keeni kartaan laakiin haddii aad siyaabo kala duwan wax arkaysaan intaad murmaysaan ee khilaafaad ku jiro ayaa waqti badan yani wax weeyaan uu dhaafaya dib wadaad kaan si wada jaan qaado